السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبر غاياش ميلبا تشوكتين تشيلك صدحات. انتي مغليسو ما انت waxaad ogtihiin anigu waxaan ku soo bilaabay 6 sano ka hor inaan ka soo hadlo ubadka caseeyaha ubadka dhibaataysan stage waan soo gaaray hadalkaygii siyaasad kaliya maaha taariikh waxaan goor walba u hadlaa u dooda dhalinyarada jiilka saddexaad we are the world Somalis G3 adduunka dhanahay maanta waajib baa saaran waxaan doonayaa inaan baaq u soo diro jamhuuriyadda barakeysan Somaliland ugu horeeyo madaxweyne Muuse Biixi golaha dawladdiisa golaha wasiirada iyo civil society iyo aabi hooyo Somaliland shacabka Somaliland sheekh wadaado culimo iyo city council waxaan la hadlayaa meeyarada gobolada oo idil waxaan rabaa inaan xasuusiyo maanta Somaliland way horumartay dawlad aqoonsigeeda soo dhaweeyaan waxay Somaliland maanta gaartay heer aan qofna gaarsaneyn inkastoo aan ahayn dawladii iyo dadkii ugu horeeyay xorriyad qaatay 26 June maanta waxaan u soo noqonay dabiicigii iyo xorriyadeennii runta ahayd inkastoo nala dulmay wax walbo laakiin maanta waxa la doonayaa ficil baaqaygan waa baaq muhiim ah wuxuu ku salaysan yahay dhalinyarada waxay dhalinyarada waa hope success future waxay dhalinyarada waa rajadaan leenahay waxaan kaloo iri dhalinyarada waxa weeyaan guushii haday wax bartaan waxay dhalinyarada waa mustaqbalka marka dhalinyarada Somaliland maanta phenomenon baa jiro tahriibkan iyo wax walba iyo sidii looga bixi lahaa waxaan doonayaa dawladda inaan talo ku darsado maanta dadka shacabka Soomaaliya xaq bay leeyihiin taxpayer way canshuuraha la bixiyaa meel walba gobol walba municipality ku taalo city council ka canshuur fara badan soo gasho lacagta waa in dadka looga faa'iideeyaa lagu shaqeeyaa waxaan nii sheegayaa jiritaanka citizenship haday tahay nation haday tahay waa dal iyo shacabka weey dalka wax dhiso dalkan waxa weeyaan waa dhalinyaro dalka waxa weeyaan waa caruurta infanska ee markay dhashaan sida loo ilaaliyo loo koriyo dhalinyaraduna dhibkeeday leedahay dhalinyaradu haddaan la mashquulin horta waa qumbulo nawawiya waa qumbulad hurda berito al-shabaab gelaya berito terrorism naqanaya berito isqarxinaya berito badda isku halaagaya wax walba marka dawladdu waxa laga doonayaa solution dawladahan Europe ku noolnahay waa aragteen waa in laga fikiraa ubadkii haddii ubadkii laga fikiro waxa laga fikiray jiritaankii Somaliland waxa laga fikiray jeen waxa laga fikiray bii'o nadiifa waxa laga fikiray maskax nadiifa waxa laga fikiray waxyaalo badan marka dawladdu talaan u soo jeedinaya maanta oo doonayaa ninkii dhageysanayo clipkan YouTube-ka soo dhigayo ni soo gudbinayo in dawladdu loo gudbiyo laga fikiro waxa la hadlayaa madaxweyne Muuse Biixi iyo dawladdiisa waxa loo baahan yahay dib u habeen in lagu subiyo civil society waxa la dhaho shacabka iyo mujtamaca iyo bulshada waa in la helaa si degdeg ah loo abuuraa wax creative ah oo ubadka creative ah wax la abuuraa oo ubadka creative ah laga bilaabo ubarka yar yar ee xanaanada dhiganayo iyo dhalinyarada lagu dadaalo la dhiso jirkooda iyo maskaxdooda si loo helo ubad nadiif ah iyo beeyad wax qabad leh oo ubadka wax u qabanayso ubadkii wax tartay waxaan madaxweynaha iyo dawladdiisa ka codsanayaa baaq u soo dirayaa in lagu amro city council walba municipality gobolada dhan inay canshuurta ay qaadaan gobolada ay geliyaan goboladooda ay wax ku qabtaan waxaa loo baahan yahay in la helo dhalinyarada international library bibliothèque buugaag geography buugaagta adduunka oo dhan buugaag kasta taala in la helo ay ubadka wax akhristaan internet leh ay casharo ku dhigtaan ay homework ku sameeyaan ay tagaano entertainment sidoo kale waa in la helaa buugaag casri ah oo adduunka dhan laga keenaa sidii bibliothèque nationale oo Paris ku taalo ama tan ku taalo London ama Holland ama Germany waa in aan helnaa buugaagta adduunka ee saxsan si aad dadka cilmigu kala dadaalo maskaxdiisu ka xiro si ay ubadka wax u akhriyaan wax u bartaan adduunka la jaan qaadaan meesha aan sheegayana
waa inay yeelataa wax la dhaho swimming pool bashiinooyin barkado lagu dabaasho ubadka familadoodana intay yaryar yihiin lagu qasbo inay ubadka iskuulka usoo diro ay dabaasho bartaan dabaasho jirkay u fiican tahay maskaxday u fiican tahay ubadka waa in dabaal la baraa yaraantooda xeebo badan aan leenahay ay ka faa'iidaystaan badahooda waa in biblioteega uu yeeshaa meel lagu dabaalan karo ardayda iyo ubadka iyo entertainment leh oo dabaasha lagu subiyo waa inuu yeeshaa gym ay dowladda leedahay maaha meel sport iyo private oo lacag lagu baranayo meesha waa in gym laga furaa meel weyn ha noqoto gobolada dhan gym waa inuu yeeshaa say ubadka riyaado u sameeyaan u tartamaan sportigana iskuulaadku waa in lagu soo rogaa athletic oo waxaa naga dhashay maaw in orada la suubiyo tartamo la hergeliyo ay dalka usoo baxaan niman sport ah oo bilada dahab soo hoyo waa in lagu xijiyaa oo fankii la xoojiyaa waa in la helaa tiyaatarkii hargeysa la furaa tiyaataro kale la furaa tv-ga waa in barnaamij loo suubiyaa dhalinyarada abwaanada cusub oo heesihii hergale ah ay ku tartamaan waa in la sameeyaa tartamo ay dhalinyaradu tartamayaan iyo kadis iyo waxbarasho iyo wax walba uu tv-ga shaqeeyaan waa in wakaaladii filimada lasoo celiyaa waa in wakaaladii filimada lasoo celiyaa waa in shaleemooyin la furaa waa in ay ubadka dunida la socdaan iyo wixii jiro iyo agtaro naga soo baxaan marka waxa weeyaan haddii la helo biico shaqeynayso oo aan ubadkeenu gacanta ku qaban hadday sport tahay hadday biblioteek tahay hadday entertainment tahay dee waxaan helaynaa ubad nadiif ah oo dunida la jaan qaadayo wax la qaybsanayo informationkana waa knowledge inamadii hadday wax akhriyaan hadday geography akhriyaan science akhriyaan philosophy akhriyaan drama akhriyaan ay bugaag kala nooc akhriyaan ay biblioteekyaasha adduunka waxa yaallay haystaan ay haystaan encyclopedia ay haystaan almonaco atlas ee geographic schoolka xataa ay meeshan ka kordhisanayaan siday imtixaanka u gudbilaayeen jaamacada u gudbilaayeen ay helaan all information library and bibliothèque is very important oo la dhigo taariikhdii cabdullaahi suldaan abwaanadii taariikhdii halgamadii xasan keyd maxamed ibraahim cigaal dee ubadkii waxay naqanayaan taariikhay baranayaan waxaa kaloo aan soo jeedinayaa oon la hadlayaa iskuulaad maha ubadka in qol lagu hayo maha ubadka in ul lagula karbaasho ubadka waa la siiyaa waqti sporta cayaaraan iskuulaadkan waxaan kula tarinayaa ubadka markay yaryar yihiin kaxeeya waddada si loo maro ha la baro wasaaradaha ha la geeyo meelaha taariikhda ha la geeyo markuu iskuulka la xiranayo boyscood ciyaalka ha laisku arooriyo ha laisku dhex daro kaamam gobollada ha laga furo ha loo suubiyo journey inay maalin walba gobol soo arkaan say dalkoodii waddankoodii taariikhda u bartaan ay ku koraan biyo ah in wasaaradaha markii la geeyo la yidhaaho wasaaraddaassaanay u shaqaysaa tii waxbarashada weeye isbitaallada la geeyo jaamacadaha la geeyo meelba la geeyo waddada suu u maraya la baro la mashquuliyo cunugii wuxuu kusoo korayaa well prepared knowledge weeye yaraantiiu kusoo koray wasaaradaha ay dalka leeyihiin yaraantiiu kusoo koray taariikhdii yaraantiiu biblioteek kusoo koray yaraantiiu sport kusoo cayaaray yaraantiiu dabaal kusoo bartay dee inankaa nin tumanaya maaha odayaashaan hadda ciyaalka ee madaxda ah waxaa dhan sooma arag macal annaga sooma arag marka maanta somaliland canshuur bay qaadaa somaliland budget bay leedahay way isku filan tahay qumbuladan hurudee ubadka ah ayaa la doonayaa inaan ka shaqeyno ubadka iskuulaadka elementaarka dhigto meel walba dhigto private school inuu jiro maaha waa in ubadka loo sameeyaa wasaaradda waxbarashada ay sameysaa inay ubadkii wada sinaadaan ay iskuul ku quraacdaan ama iskuul ku qadeeyaan kuwa galabta ubadka waa in laisku keenaa laisku aruuriyaa laga baabi'iyaa qabiil ubadkii hadday sport wada cayaarayaan way isbaranayaan ubadkii hadday dabaal wada aadayaan way isbaranayaan ubadka hadday gobollada u wada kala gudbayaan way isbaranayaan ubadka hadday wasaaradii tegayaan meelba tegayaan waxay kusoo korayaan dowladnimo iyo sharaf iyo dowladooday jecel yihiin marka waxaan odhanayaa hadalkayga yaala saabsan we must need library biblioteek leh swimming poolkii leh oo gobol walba ah hargeysa keliya maa gobol walbo meeyar walbo ay maqlayo waa in qarashka dadka canshuurta bixiya gobolkaa jooga wax ugu qabta dadka niimo baahnee ubadka wax u qabta ubadkiinu gacan ku qabta waalidiinta ku qasba inay ubadka iskuul geeyaan ku controla
ku qasba ubadka inay dabaal geeyaan ku qasba ubadka inay sport geeyaan ninka waalidka aan ubadkii iskuul geerin ha laga qaado ubadka kolleejooyin ha la geeyo shacabku wax la baro haastala victoria sempre ka qaadash mac salaama